ku soo dhawaada xubintii wararka ciyaaraha. Kooxda Tottenham ayaa Jose Mourinho u magacowday tababaraha kooxdooda kadib markii ay shaqadaasi ka eeday tababarihii hore ee kooxdaasi Mauricio Pochettino. Tottenham ayaa noqonaysa kooxdii saddexaad ee Ingiriis ee uu tababaro Jose Mourinho kadib Chelsea iyo United. Mourinho ayaa saxeexay heshiis ku eg xagaaga 2023. Mourinho ayaa kadib magacaabistiisii warbaahinta u sheegay tayada ciyaartoyda iyo waliba akaademiyada ayaa ah waxa ay xiiso geliyay, sidoo kale la shaqaynta ciyaartoyda ayaa ah waxa ay soo jiitay. Gudoomiyaha Spurs Daniel Levy ayaa isna warbaahinta u sheegay waxaanu haysanaa mid ka mid ah tababarayaasha caalamka ugu fiican uguna guulaha badan. Tottenham ayaa xilli ciyaareedkii la soo dhaafay gaadhay ciyaarta kama dambaysta ah ee Champions League iyadoo uu tababarayo Pochettino hase ahaatee ku guuldareysatay inay qaado koobka kadib markii ay guuldarro 2-0 kala kulantay kooxda Liverpool. Tababare Pochettino ayaa la magacaabay bishii May 2014 balse ku guuldareystay inuu koob qaado shantii xilli ciyaareed ee uu la joogay Spurs, iyadoo kooxdan ka dhisan waqooyiga London koobkeedii ugu dambeeyay ay qaado uu ahaa Carling Cup-kii sanadkii 2008. Mourinho ayaa hore ugula soo guuleystay koobka horyaalka Ingiriiska 3 jeer kooxda Chelsea iyo waliba hal FA Cup. Mourinho ayaa la wareegay kooxda Tottenham oo shantii ciyaareed ee ugu dambeysay ee Premier League aan wax guul ah soo hoynin. Ciyaarta ugu horeysa ee Mourinho ayaa ah safar uu maalinta Sabtida ah ku tagi doono garoonka London Stadium ee kooxda West Ham United oo yana ka dhisan isla magaalada London. Haddaba daawade, maxaad ka oran lahayd magacaabista Mourinho? Ma filaysaa inuu Tottenham gaarsiinayo in ka badan intii uu Pochettino gaarsiiyay? Fadlan ha ilaawin inaad fiidiyowga like saartid iyo channelka subscribe saartid, adoon ilaawin inaad daartid gambeelka si aad ula socotid muuqaal walba oo cusub.